الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إلaahay subxaana wa tacaala mahadooyinkiisa aan aad iyo aad ugu mahadinayna waxaa ka mid ah soo gaarsiinta uuna soo gaarsiiyey bishan barakaysan ee ramadaan. waxaa ka mid ah waafajinta uuna waafajiyey inaan soonno maalintii iyo inaan qiyaamna habeenkii. aqbalkaan rabbi ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuusan nagu soo celinin cibaadadan alla ka baryayna. soonkaan soonnay kuwa baahi ka dheefa keliya inaanan noqon ayaan ilaahay wax badan ka baryayaa subxaana wa tacaala. waxaan wax yar ka tilmaamaynaa soonka iyo dumarka. calaaqada weyn ee ka dhaxaysa dumarku waa qismi ama qayb ka mid ah makhluuqaadka alla subxaana wa tacaala. qaar ayaase aad u dadaala oo rabbigood caabuda oo soonka ku dadaala oo tawxiid ka qira oo jasadkooda qariya oo ilaahay aad iyo aad u jecel. si kastoy u dadaalaan xataa oo ay u soomaan oo ilaah subxaana wa tacaala ay ugu dhowaadaan, badankooda soonkooda soddonka ma gaaro. balse waxaa loo baahan yahay dumarku inay aad iyo aad u gartaan waxyaabaha korkooda ah loogana baahan yahay. gabdho saa'imaad ah ayaa jira sida allah kitaabka ku xusay subxaana wa tacaala: wasaa'imiina wasaa'imaat, rag soom badan iyo dumar saa'imaad ah oo sooma. waa dumar cajaa'ib badan, waa dumar xaqa ku dadaala, waa dumar sooma oo qiyaama oo taraawiixa, qur'aanka rabbina aqhriya subxaana wa tacaala. in badan ayay dumarku maalmihii hore aysan sidaa ahayn. mahad fara badan oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ku mahadinayna waxaa ah inaan helno dumar sooma isniin iyo khamiis, in la helay dumar soomaya carafo, in la helay dumar soomaya ayaamulbiid. allaahu akbar. qur'aan qaar akhrinayaad arkaysaa tafsiirkii macaanidiisana yaqaana. qaar baa markay qur'aanka akhrinayaan ooya, indhahoodana biyo ka yimaadaa oo dumar ah. sidaa darteed ayuu rabbi yidhi: waaddaakiriina allaaha kahiiran waaddaakiraat. rag wax badan ilaahay xusaa jira iyo dumar daakiraad ah oo wax badan ilaahay xusa subxaana wa tacaala. xaaladdaasi waa mahad ilaahay, waa wax rabbi loogu mahdiyo, waa arrin lagu bishaaraysto. waayo in badan oo ka mid ah ma aysan garan jirin sida xaydka looga tahaaro qaato. inta dhiig ku dhaco ayay iska socon jireen ayagoo geel iyo ari raacaaya. in allaala intay habeenkii janaabo galaan ayaa laga yaabaa ilaa qoraxdu ay soo kululaato 8 saac laga gaaro inaysan qubaysanin. salaad subax ma jirto, cibaado kale ma jirto. saasaa xaaladdooda dumarku in badan ahaan jireen. ilaahay mahad ha ka gaarta subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu sidaa tahay oo siyaamka iyo cibaadada iyo qur'aanka iyo xijaabka in badan oo ka mida dumarku ay markaa ku socdaan. ilaahay wuxuu in badan tilmaamay, wuxuuna kitaabka qur'aanka noogu tilmaamay qof walba oo camal wanaagsan qabta oo dakar ah ama unha ah ama lab ah ama dhadig ah ama wiil ah ama gabar ah ama nin ah ama naag ah oo haddana camal wanaagsan la yimaada, in xayaatada adduunku inta ay nool yihiin lagu noolayn doono xayaato dayib ah oo fiican. nolosha middeeda ugu wanaagsan baa lagu noolayn. aakhirada waxay camal qabteen kiisa fiican ayaa lagu jaasinayaa. xayaatada dayibkaa ma aha in ninkeeda dusheeda oo dhan uu dahab iyo luul ka dhigo. ma aha guryo waaweyn in loo dhiso. ma aha mar walba waxay u baahan tahay inay hesho. laakiin xayaatada dayibka ah ee ugu fiican waa xayaatada lagu noolaado iimaanka iyo camalka saalixa ah.
waa xayaatada soonka lagu noolaado, waa xayaato saa'imad lagu noqdo oo ay gabadhu soonku ku soonto, qur'aanka ay ku akhriso, daacada alle ay ku dadaasho, xijaabku aysan khafiifinin, deriska aysan dhibin, xanta ay joojiso. waa xayaatada midda ugu dayibsan, uguna fiican, uguna qaalisan. waayo ragga iyo dumarka labadaba cibaadada isku si ayaa loo amray walaalayaal. sidaa darteed ayaa dumarka siyaamka iyo soonka calaaqada ka dhaxaysa waxay tahay inay gartaan in korkoodu siyaam waajib ku yahay, inay ogaadaan in soon dushooda laga rabo, inay ogaadaan cibaado in korkooda laga rabo, inay ogaadaan masaajidada inay tegi karaan oo ay ku cibaadaysan karaan, oo ay taraawiix ku tukan karaan, oo ay salaad subax ku tukan karaan, oo ay salaadaha oo dhan xaadiri karaan. nin saxaabiya ayaa yidhi rasuulkaan la tukanaynay salaadda subax, waxaa soo xaadirayay dumar ayaa soo xaadirayey mutalafitaad ah oo ku duuduuban maryahooda, go'ahooda waaweyn ayay ku duuduubnaayeen, dhar xoog badan ayay qabeen, xijaab adag ayay xirnaayeen. salaadda marka laga baxo guryahooday ku laaban jireen, mid la garan jirayna ma jirin, mid aan dhihi karna waa heblaayo ma jirin, waayo khalas ayaa jiray. mugdiga jira darteed ayay kala soo qaybgeli jireen. saxaabi kalaa tilmaamay rasuulka sala allahu calayhi wasallam inuu yidhi, salaad ayaan gelayaa, waxaan jeclahay ama aan damcahayaa inaan dheereeyo, markaa kadib ayaan maqlayaa ilmo yar oo sabi ah oohintooda. markaan oohintooda maqlo ayaan salaaddii aan damacsanaa inaan dheereeyaan soo goynayaa, waa jarayaa, waa gaabinayaa, anoo ka cabsanaya inay hooyadii ku fidnowdo. salaadday ku jirtaa, khushuucii baa ka yaraanaya, oohinta canugaa qalbigeeda qaadanaya, anoo taa ka cabsanayaan salaadda soo gaabinayaa. dumar cibaadaystaa jira walaalayaal, dumar rabbi yaqaanaa jira subxaana wa tacaala, dumar salliga nebiga aad u akhriyaa jira, dumar qur'aanka xufaad u ah oo sidii loogu talagalay u xafiday, u tajwiidiyey ayaa la helaa. ee dumarow dadaala, wax badan ilaahay ateeca, khayrka iyo wanaagga ku sugnaada. laydinkuuma talagelin keliya kushiinka keliya inaad ku jirtaan, waa laga yaabaa inay saa'imad tahay, sooman tahay, sidii ay 3 saac u gasho kushiinka. waa ramadaan, wax samayn iyo anwaac cuntay u samaynayso yaa gobolkood loogu kor addimaa, yaa gobolkood ay dib ugu laabtaan xataa mar allaala markii salaadda makhribka ay tukadaan. cibaadaan jirin, akhrin qur'aan baan jirin, taraawiix baan jirin. war waxaan 11 bilood baad raggan wax siin jirteen, 11 bilood baad soor iyo beris u kariseen. bishaan aad iyo aad ugu dadaala, dhihi mayna waxba ha karinina oo raggu ku diri mayna dumarka, balse cibaadada waxa laga ogaado, diinta alla wax ka garta, amarka alla la socda, daacada ilaahay aad yaad u sameeya, raashinkiinna karsada, afurkiinna samaysta, ilmihiinna daryeela, wax allaala wixii waajibaada oo guryaha idinka saaran qabta, ogaadana camalka saalixa ah. dumar baa la arkaya aan hal jus xataa aqrinin, ramadaanka kowgiisa bilowday ilaa uu dhammaaday. dumarkaasaa ha yeelina walaalayaal, ragga intay masaajidada fadhiistaan wax badan ay qur'aan akhriyaan, yay xawaaji tumaysaa, ay kalluun dubaysaa, ay sambuus karinaysaa, ay dubaysaa, waxyaabo fara badan oo noocaasay ku jirtaa. waa imaan, gacantuu u gelgelin, waxa kalena waa la daadinaa. gabadhii maskiinta waxay maantoo dhan ku daashay oo ay ku cibaado beeshay, oysan qur'aan ku akhrinin, oysan nebi ku sallinin, oysan ducaysaninna saasuu u gelayaa. xaaladdaa ha laga daayo, xataa ha la saacido haddii la saacidi karo. mararka gobol ka mida ha la dhaho bax jusa akhriso, anaa intaa kala dubayee ama samaynaayee. xaaladda noocaasi waa lagama maarmaan. soonkii in badan baa tagto, in yar baa hartay. intaa hartay ka gaarsiiya walaalayaal, intaa hartay toobag waafaqa, intaa hartay ilaahay ka barya subxaana wa tacaala inuu wanaaggii khayrka idin waafajiyo. gabdhaha caadadu ay ku dhacdo xilliga siyaamka marka la joogo, saan hadda soo tilmaannay waxaasoo dhan baad qaban kartaan. wax allaala wixii dikri allaad samayn kartaan, ilaahay subxaana wa tacaala ayaad xusi kartaan. war dhinac haddii la xidha dhinac baa furane dadaala. gabdhaha saa'imaadkee soomay ee soonka in badan ku dadaalayna ku bishaaraysta ilaahay inuu idin ballan qaaday baabkaa rayaan inaad ka geli doontaan.
in allaala inta saa'imiin iyo saa'imaad noqotaa istaaga la leeyahay. ru'uusul qalaa'iq baa looga wacaa, way soo istaagaan, markaasaa waxay ka galaan baaburayaan. mar allaala marka axadka ugu dambeeya uu galo waa la xiraa. masoonta bannaankay taagan tahay, masoonta cadaabkaa loo sii wadaa, masoonta jahannamaa loo sii wadaa, masoonta dhacaanka naareed say maalinta wax u cuntay ay si kibra ugu cuntay yaa tacaamka ahlu naarka ah loogu talagalay la cunsiiyaa. say wax u cabtay dharaar nahaar ah oo ramadaan ah si kibira ayadoon cudurdaar qabin yaa dhacaanka ahlu naarka loo cabsiiyaa. ee gabdhaha saa'imaadka ahow aad yaad u dadaala idinka, wax badanna ilaahay ka barya subxaana wa tacaala. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquuna. inaad cabsataan ayaad mudan tihiin ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. dumarkana wattaqiina allah, ilaahay ka cabsada buu yidhi allah subxaana wa tacaala. haddaad dumar tihiin si ilaahay xasanaad fara badan iyo khayr aan la soo koobi karin idiin siiyo. dumarka iyo siyaamkana meeshaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa. rabbiga xaqa waxaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo, dumarka aan soo tilmaannay saalixaadkana inuu ilaahay shar iyo shaytaan ka xafida intay adduunka joogaan. cirdigoodii sharaftooda ilaahay ha u xafido, siyaanadooda ilaahay ha u dhowro subxaana wa tacaala. sharaftooda ilaahay ha u dhowro adduunka intay joogaan, aakhirana ilaahay firdowsa alaclaa ha ku abaalmariyo. allaahuma aamiin aamiin aamiin. wabillaahi tawfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.